waa hagaag daawadayaal idil ahaantiin meel walba naga daawanaysaan waxaan ku sugannahay magaalada Hargeysa iyadoo ay ognahay inay horyaaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay marayaan meel xasaasi ah dhawaan waxaad arkayseen Hargeysa stadium oo ay ka socdaan horyaalada kala duwan ee heerarka koobaad iyo labaad iyo saddexaad balse kulankan horyaalka oo ku dhow gabagabo toddobaadkan waxa uu noqon doonaa toddobaadkii ugu xiisaha badnaa iyadoo ay hadheen 6 ciyaarood oo kaliya horyaalka ay ka hadheen marka laga reebo toddobaadkan kulanka ugu xiisaha badan leh toddobaadkan fooda la isku dari doono waa kooxaha guunka ee inta badan soo wada ciyaarayay ee xifaaltanka kubadda cagta marka laga hadlayna uu ka dhaxeeyay waa kooxahii loogu hor aasaasay ee Soomaaliland waa Goodir iyo Gaashaan oo in badan xifaaltan ka soo dhaxeeyay jiilashii kala duwanaa ku dhow muddo ku dhow 22 sano wuxuu noqon doonaa toddobaadkii ugu xiisaha badnaa iyadoo Hargeysa Stadium ay fooda isku dari doonaan lugtii labaad oo kooxna ay haysato 26 dhibcood oo ah Goodir oo hoggaanka u haysa horyaalka iyo sidoo kale Gaashaan oo ku jirta kaalinta afraad 20 dhibcoodna leh haddaba waad arkayseen Muqdisho Stadium oo ay ku sugnaayeen taageerayaal gaadhaya 65,000 lagu qiyaasay iyadoo qaadka garoonkaasina uu intaasi dhan yahay balse Hargeysa Stadium taariikhda markii ugu horeysay horyaal ama koob socda la soo buux dhaafiya waxa uu ahaa Sonya Cup oo ay isugu soo baxeen final Gaashaan iyo Maaliyadda koobkaas oo ay Maaliyadda ku qaaday 5 gool waxa uu ahaa kulankii ugu taariikhda badnaa daawadayaashii ugu badnaa lagu qiyaasay 10,000 oo daawadana ay ka soo qayb galeen Hargeysa Stadium haddaba kulankani maadaama uu ka xiiso badan yahay kulamadii hore ee kooxaha fooda ay isku soo dareen Hargeysa Stadium ma iman doonaan taageerayaashii ugu badnaa ee abid iyaga oo loo eegi doono taageerayaashii ka soo qayb galay Muqdisho Stadium ciyaartii dhawaan dhaxmartay kooxaha ku hordamay hoggaanka labadan kooxood iyadoo ay u dhaxeeyaan space badan oo marka laga hadlayo dhinaca dhibcaha kooxna ay haysato 26 dhibcood kooxna ay haysato 20 dhibcood iyagoo ku jira kaalinta koobaad iyo kaalinta afraad waxa uu hadhay koox kasta 7 ciyaarood marka ciyaartan lagu daro horyaalku gabagabo ku dhow yahay Gaashaan iyo Goodir waa laba kooxood oo guuna ciyaartoyda marka laga hadlayo caasimada kuwa ugu fiican haysata haddaba daawada su'aasha ay dadku isweydiinayaan waxa weeye guushu ay raaci doontaa sidoo kale kooxahaasi inta ay ku kala guuleysan doonaan sidaan wada ognahay 2001 iyo 2002 horyaalkii tijaabada ah ee laga qabtay wadanka waqtigaasi ay ku guuleysatay kooxda Goodir iyo sidoo kale 2006 2007 oo iyadana horyaalkaasi uu ahaa mid haaf qabsoomay waqtigaas oo ay qaaday kooxda Gaashaan labada horyaal oo labada kooxood ay ku soo kala guuleysteen horyaalkii saddexaad ee si rasmi ah u socda oo koox kastaba ay ciyaaraysay 18 ciyaarood koox kastana ay soo ciyaartay 12 ciyaarood horyaalkii lugtii koobaad waxay ku dhamaatay barbardhac oo eber balse kulankan uu ka xiiso badnaan doona Hargeysa la eegaya taageerayaashii ugu badnaa ma iman doonaan kulankan se xiiso gaar ah ma u yeeli doonaan warbaahintu iyadoo Khamiista kulankaas uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee ciyaara ay wada ciyaaraan labada kooxood ee guunka kabtanada iyo sidoo kale ciyaartoyda kooxaha oo diyaar garow xoogan ugu jira ciyaartaasi Hargeysa Stadium su'aalahan inta tagay waxa kamid ah Hargeysa Stadium marti galin doona taageerayaashii ugu badnaa labada kooxood iyo sidoo kale natiijada ay ku dhamaan doonto ciyaartu iyadana aan idin dhaafayo falanqeynta qof walba uu hoostan ugu wadaagi doono kulankan yaa taariikhdu ku raaci doontaa maadaama kooxdan ciyaar kasto ay soo wada ciyaareen taariikhda u gashay horyaalkana yaa ku guuleysan doona maadaama imika Goodir ay ku haysay 26 dhibcood Gaashaanna ay leedahay 20 dhibcood oo kaalinta afraad ay ku jirto kooxaha dhaadhici doona ee ku dhici doona kaalinta labaad horyaalka ciyaari doona qaybta labaad yay noqon doona laba kooxood baa ku dhici doona Serie B iyadoo 10 kooxood ee caasimada 8 kooxood ay soo bixi doonaan laba kooxoodna ay ka soo dalaci doonaan heerka labaad daawada waxaan idin dhaafaynaa waxaas muuqaalada su'aalaha soo dhan intaynu ku kulmayno mid kan la midana insha Allah waxaan idinka tagayaa ciyaarta iyo sidoo kale kabtanada iyo halka marba ay marayso anagoo halkan idin kala socodsiin doona